magaalada Boorama ee guud ahaan gobolka Awdal ayaa galay marxalad siyaasadeed aad u xasaasi ah kadib markii ay soo xoogaysteen wararka sheegaya in madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud uu si dhow ula socdo dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed ee ka socda magaalada Boorama gaar ahaan qorshaha la xiriirinayo ku dhawaaqista maamul goboleed loo bixin doono Awdal State ilo xogaal ayaa tilmaamaya in villa Soomaaliya ay ka walwalsan tahay saameynta ay talaabadan ku yeelan karto xasiloonida siyaasadda dalka maadaama Awdal State lagu dhawaaqi karo xilli dalka ay ka jiraan isbeddello siyaasadeed doodaha dhismaha iyo dadaalada dawladda dhexe ee ku aadan ilaalinta midnimada iyo dastuurka dalka magaalada Boorama ayaa noqotay xarunta ugu weyn ee doodaha siyaasadda Awdal halkaas oo ka socdana kulamo ay la yeelan doonaan siyaasiyiinta dalka odayaal dhaqameed waxgarad kulamadan ay intooda badan diiradda lagu saari doona aayaha siyaasadda Awdal halka ay doorka ay ku yeelan karaan nidaamka federaalka iyo xiriirka ay la yeelan karaan dawladda dhexe wararka ayaa sheegaya in madaxweynaha uu doonayo si taxaddar leh u maareeyo xaaladahaasi si looga fogaado xiisad siyaasadeed oo u dhaxaysa dawladda federaalka iyo beelaha ku dhaqan Awdal isla markaana aysan dhici doonin tallaabo hal dhinac oo ka baxsan qaab dhismeedka dastuurka dalka ku dhawaaqista Awdal State ayaa loo arkay arrin xasaasi ah maadaama ay taabanayso doodaha ku saabsan tirada iyo shuruudaha dhismaha maamulka federaalka dawladda federaalka ayaa marar badan ku celcelisay dhismaha maamul cusub loo marayo wado sharci ay ku lug leeyihiin wadatashi qaran dastuuri iyo heshiisyo siyaasadeed oo ballaaran iyadoo indhaha lagu hayo magaalada Boorama la sugayo go'aanada siyaasadeed ee ka imaan kara ayaa la filay in toddobaad soo socda ay noqon doonaan go'aamin doonaan mid xoog ku saabsan jihada Awdal ay u socoto su'aasha taaganaya ama lagu dhawaaqi doona Awdal State si madax bannaan mise dawladda dhexe ay la imaan doonto xal siyaasadeed oo dhexaadinayo magaalada Boorama waxay noqotay meel ay ku kulmaan dana siyaasadeed oo waaweyn isla markaana si dhow u socdaan villa Soomaaliya